الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعجلدي أما درسي شن إيا طبنات إيا دروس إني حجك إيا عمرة بإذن الله تبارك وتعالى أعماشي حجك مركي إنه مركي دويت سي جودة هانا ولا شيء حتى أنا سي كوبان هذا أو شيء قبل مركي عمرة دي قيبتي هرب لما يسو ومالنتي سيديدا la gaadho waxay xidhanaysaa xajkii allahuma labayka xajan bay dhahaysaa allahuma labayka xaj bay markaa xidhanaysaa ayib kadibna mino ayay u baxaysaa maalinta sagaalaadka duhurkii iyo casarkii iyo maqribka iyo cishaa'igii iyo fajarkiibaa halkaa lagu tukanayaa qoraxdu habeenkii meesha la joogi subaxii dambana maalinta sagaalaadka waxaa la aadayaa carafa duhurkii iyo casarkii lagu tukanayaa iyagoo laisku daro jamcu taqdiim horey baynu usoo sheegnay maqribkiibaa meesha laga soo baxayaa musdelifaa la imanayaa haddana halkaa waxaa lagu tukanayaa maqribkii iyo cishaa'igii ayaa iyadana lagu tukanayaa kadib iyo salaadii subaxiibaa halkaa laga soo tegayaa markii lagu ducaysto oo waxaa la soo aadayaa insha allahu tacaala musdelifo laga soo dhaqaaqay waxaa la soo aadaya waa maalintii tobnaadka ee xajka acmaashiisa u badan la sameynayay marka waxaa la sameynaya in jamratul caqaba la tuuro kadibna wixii la wadayna la gowraco kadibna uu qofkaasi timihiisii raggiina ama xiirto ama ay gaabsadaan dumarkuna iyagu wax yar unbay ka jarayaan kadibna maka ayay usii gudbayaan halkaasaa dawaafkii la odhan jiray dawaaful ifaada ee weynaa lala imaanaya iyo sacyigiisii ayaa halkaa lagula imaanaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ayib koob iyo tobnaadkii ayaa lasoo noqonayaa oo jamaraadkii la tuuranayaa iyo labiyo tobnaadkii iyo saddexiyo tobnaadka qofkii sii jooga qofkii kalena maalinta u dambeysa uu iska sii tacajulayaayo wuu degdegi karaa haddii uu rabo marka qofku inuu laabto wadankiisii sidaan horeyba u sheegnay dawaafkii dawaaful wadaaca la odhan jiray sagootigii u dambeeyey ayuu la imaanayaa gabadhu dumarku iyagu talbiyada iyo labeyk allaahuma labeyk marka laleeyahay lala jahri maayo kor loo qaadi maayo hoos bay u akhrisanayaan ragga ajaanibtii iyo si aynan ugu fidnoobin ayay iyagu hoos u qaadayaan gabadhu waxaan idhaha haddii xaydkii dhiiggii uu ka yimaado bacda dawaaf wa qabla sacyi bal u fiirso ilaan mar walba dhiiggu meel buu kaga iman karaa gabadha iyadoo intay dawaafkii samaysay oo 7 jeerba beydka kacbada ku dawaaftay laakiin weli aan sacyigii gudanin oo usii socota hadduu ka yimaado way dhammaystiranaysaa sacyigeeda ee una dayn mayso dhiiggaa ka yimid dhiiggu wuxuu loo shardiyaa kacbada un baan lagu dawaafaynina sacyiga waa lagu samayn karaa waxaa u bannaan dumarka hadday ka baqaan inuu dhiig ku yimaado inay isticmaalaan xubuub waxaa weye kiniin la isticmaalaa jira oo dhiigga dib kaaga dhigaya ood acmaashaadii dhammaysan karto sida ramadaankaba ay suuragal tahay gabadhu ay isticmaasho kiniinkaas si ay bishii ramadaan oo dhammaystiran ay u soonto dumarku markay marka acmaasha gudanayaan sida dawaafka iyo sacyiga iyo meelahaas oo dhan wixii lamid ah waxay iska ilaalinayaan musaaxamatu rijaal raggii inay cidhiidhiyaan waxaad arkaysaa markii kacbada lagu wareegayo oo xajarul aswadka lasoo taabanayo oo rukniga la taabanayo oo lasoo shuminayo qofku dumar waxaad arkaysaa intay raggi isku qaadaan oo dusha ka koraan oo xagga uga dhacaan oo inta kala dul marayaan oo korka ka saaran yihiin usii socda halkaa marka sidaas ma aha si saxa dumarku waa inay hadday meeshu bannaan tahayna ha soo gutaan haddii ayna bannaanayna korka ha iska maraan sidaasay caaisha iyo aswaaju rasuulillaahi ayay samayn jireen ayib gabadha iyada lagama rabo raml inay waxa la yidhahdo waxaa jira waxoogaa orod ah iyo ruculayn ayaa la rabaa markan oo dawaafka la sameynayo gabadhu waxba iyada lagama rabo ruculayna lagama rabo caadi bay dumarku u soconayaan iyagu insha allahu tacaala gabadha haddii dhiig uu ka yimaado kutubta adciyada iyo adkaarta way aqrin kartaa qur-aanka naftiisana way aqrin kartaa musxafka unbayna taabanaynin inta kale o dhan way samaysan kartaa gabdhaha waxay awoodaan inay habeenkii saan horeyba usoo sheegnay iyagu iska sii baxaan oo markii musdelifo habeenkaa la yimaado ay horeyba usii dhaqaajiyaan insha allahu tacaala si ay usii gutaan acmaashooda kale way samayn karaan waxaa bannaan in haddii uu qofka la socda uu arko dumarka
iyo sida aan soo sheegnay idaa ra'a weliyul mar'ati zixaamka iyo cidhiidhigu inuu aada u badan yahay, khatarna ay sidaas ugu sugnaatay in ramiga gadanshada buurta dib loo dhigo oo galabtii markay dadku soo kala caraabaan oo kale dumarku iska soo tuurtaan. waxaa u bannaan dumarka laa yajuusu limar haweeneyda uma bannaana inay ninkeeda u ogolaato galmo iyo jimaac iyo mubaasharo iyo taabasho iyo iyagoon weli xalaaloobin. waa inay diido oo xilligaas iyada aynan ku raaligelinin ayaa la rabaa. taxalulku marka laba qaybood weeye. 3 shay ashyaada kalea kuu bannaanaanaysa markaad buurta maalinta tobnaad aad tuurato oo gowricii la gowraco oo timahaaga aad wax ka goyso. waxaa kuu bannaan dharkaagii inaad dib u isticmaasho, saabuuntaadii ku qabaysato, barafuunaadkii ismariso, laakiin weli reerkaagii uma tegi kartid. laakiin dawaaful ifaada oo midka xajka weyn haddii la sameeyo markaasaa reerkaagii ayay kuu suura gashaa insha allahu tacaala. gabadha xaaidada iyo midda nufasada oo dhashay iyo midda dhiiggii xaydka leh midkoodna dawaafka leh dawaaful wadaac oo kan sagootiga u dambeeya lagama rabo, way ka tegi karaan. gabadha muslimadda waa inay xajkeeda siday haddii laga xajinayo ragga iyo dumarku markii xajulbedelo xajka ruux laga xajinayo, gabadhuna nin way ka xajin kartaa, ninkuna gabadh wuu ka xajin karaa. marka shardigun ma aha inay qeybta kale ay isku mid yihiin, ruuxa laga xajin inuu isku mid yihiin, waxba shardi ma aha. wallahu aclam.